السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو عنا صحابي ميل walbo aad naga daawanaysaan halkani aad iga daawanaysaan waa Jamiila Garoon channel aalada aan ku leeyahay YouTube-ka kusoo dhawaada barnaamijkayga xiisaha leh ee Jamiila Show caawa ama maanta qofba sidii u tahay waxa igu martiya wariye sare Cabdixafiid Maxamuud Jaawac oo in muddo ah soo wada shaqeynay bariyahan waqti fara badan geliyay sida uu u ogaan lahay amaba oo wax uga markaasi kororsan lahay amaba oo wax badan uga ogaan lahay YouTube-ka iyo qaabka uu shaqeeyo asigoo markaasi ka bilaabay barnaamijyo hor leh oo sid intiina badan ba aad ku taxantihiin Cabdixafiid Maxamuud soo dhaw ولي جميل حسن قرون مرو وقصول وينا يا بقول كيف بقول فرحب بنوتاي وياها نوات كم غريد سوشيال ميديا هو يدي نمدي يهوش قرب هيسي جميل الشو جميل قرون أديات بفرح سنة إيرانو هودك شاكي سنة أديجي داود يا شهر هدول الوسوق هنا سؤال قطينا شرفي كرامي نوتاي سدو Cabdixafiid horta runtii aad baan ugu faraxsanahay adiga iyo Marwo Hodan iyo carruurta horta aad baan idin salaamay runtii waxa weeye aad baan horta anagu naftarkeenu ku tabnay tay warbaahintina horta ma sha Allah nagamadan dhuumanay waan ugu dhex jirtaa wali maadaama aad YouTube-kii qabiir noo fadhiyo noqotay aad baan horta ugu faraxsanahay mar kale inaan soo hor fadhino aad xasuus hor lana waa gelinaysaa asxaabta ma rabno inaan horta ku dhoraano aad baa u maasantii daawashadiina Cabdixafiido anan hadalka kugu badinay waxaan ka rabaa inaad bal wax yar oo kooban inooga sheegayso YouTube oo bariyahan aad loogu batay saxaaf fara badanna ay maaragtay ku xiran yihiin barnaamijyada iyo waliba in kala hor loo hadda soo socota waxaysan wali fahansaneen ama aysan wali garlaayihiin amaba aysan ka daba tagin YouTube iyo qaabka uu shaqeeyo maadaama dad badan ay hadda doonayaan inay ku soo biiraan aaladan YouTube-ka oo aad loo xiiseeyo bal qaab ceenkee ah ayuu horta bal u shaqeeyaa YouTube وقرت جميل هذا ما صنتها طبعا يوتيوب ولا لايبراري أدونك وين مقالة لو جرو إسلام رهان تانا وحلاقة برتو وح الله لو حمانت أبا هنتا إن برتيد أما وحكو جاتيد يوتيوب كان كوكو ليسا قف سميه وكوسو بحية هالكاس أدوحي معلومات كي ليسا سومالي ذو أدبي وصوبدين ساوين سو فهميسا أنا طبعا كذلك جارب رحين تدكو حلين وبكسو ضاهدين aniguna adiga waxaan ku leeyahay horaaba adigu ugu jirto aniga waa iga horeysay laakiin hawlahan muhiimka ah ee familinimada iyo khayrka iyo wanaagga soo koray waa ku mashquulshay inaad hadda soo noqotayna waa ii muuqataa wejigaagana waxaa ka muuqda nuur fara badan iyo inaad soo socotid maasha allah maasha allah intaa kadib youtube-ka nidaamka u shaqeeyo anigu inaan fahmaan isku dayay anigoon waxba ka aqoonin muddo yar ka hor dhowr bilood ka hor waqti baan geliyey wax kastoo aad waqti gelisina waxbaad ka fahamtaa waxbaad ka barataa kumana khasaaraysid oo waxaadan horey ogeyn baad ogaanaysaa youtube wuxuu leeyahay machine la yidhaahda algorithm oo very sophisticated ah mashinkaas waxaa hoggaankiisa haya qofka daawadaha ah meesha uu daawaduhu rabo inuu daawado ayuu asaguna u raacaya dabadeedna wuxuu samaynayaa videoyaashii aad horey u daawatay mar walba kuwa lamida ayuu recommendationka kuu soo dhigaya ama maxaa la lahaa meel aad ka daawan karto kuu soo dhigaya ama next up ama home page-ka sababtuna waxay tahay wuu ku xusuusan yahay oo wuu ku yaqaanaa qofkaad tahay iyo waxa aad jecesha inaad daawatid dabeedna maalin walba waxaasuu kuu soo bandhigayaa haddii aad diidid waxaas oo wax kale aad dalbatid waxaa kaloo kusoo bandhigaya marka dadka ayaa hogaamiya algorithmka YouTube dadka ayuuna ku daba tukadaa oo isagoo raacaa ayaguna laba wax oo keliya unbay ka fiirshaan videoyaasha iyo sida u shaqeeyaan labadaa waxa weeye click through rate waxa la yidhaahdo inta qof videogaas gujisay ama kiligaraysay oo daneynayay iyo waxa la yidhaahdo waqtiga la daawado intuu dheer leeka labadaa wax buu youtube ka egaa labadaa waxyaalood qofkii ay saameyn videogus uu leeyahay oo dad badan ay kiligareeyaan isla marxantaana waqti badan ay daawadaan videogaas markiiba youtube-ka la boodayay mashinkiisii dabadeedna dadka videoyaasha noocaas oo kala daawaday ayuu diraya misaal ahaan nin caddaan oo San Francisco jooga uma diraya videogii laakiin wuxuu dirayaa qof dalkii hooyo jooga ama halkan jooga oo muuqaal noocaas oo kala hadda ka hor daawaday maxaa yeelay taariikhdaada youtube-ku haya soo dhow jami marka wuxuu leeyahay xiisahaadii iyo barnaamijyada aad ku taxneeda kuwan halkan ka sii waa kaas habba qofba ku keenayaa weliba hadda waxay bilaabeen hadda adigu video haddaad soo dhigtid dadka videogaas daawaday wuxuu kaloo kuu sheegayaa videoyaasha kaloo ay daawadaan taytaladoodii iyo magacyadoodaba kusoo dhigaya marka uu isku keen xirayaa
xaggana dadkii waa daawanayaan intana waa daawanayaan qofkii markii fiidiyoyaasha samaynaya wuxuu arkayaa waxa dadku ay xiiseynayaan oo loo baahan yahay inuu soo daayo dabeedna daraasad baa samaynaysaa based on that daraasad baa videoga samaynaysaa markaas waa tahay cabdixafiidow qofka raba xilligan la joogo inuu youtube bilaabo ama uu barnaamijyo ka bilaabo xaggee ka bilaabayaan waxaan anugu kula talin lahaa qofka raba youtube inuu sameeyo dhowr tilaabo oo muhiima inuu qaado marka hore inuu ogaado waxa uu samaynayo waxa ay yihiin channelkii markaa furti muxuu noqonayaa ma wuxuu noqonayaa channel entertainment ma wuxuu noqonayaa qabyaaladii iyo siyaasad waalan ma wuxuu noqonayaa cunto karis ma wuxuu noqonayaa fashion ma wuxuu noqonayaa aqoon kororsi ma wuxuu noqonayaa diin muxuu noqonayaa markaad ogaatid waxa aad rabtid inaad samaysid oo daraasad samaysay dan waxaa samaynaysaa waxay muuqaalkii aad bilaabaysaa dadka inta badan waxaa niyad jab ku rida cabsi ku jirto inay muuqaalkii bilaabaan marka waxaa jirta dadka 5 milyan 6 milyan haystay YouTuberiska markay hadlayaan haddaad dhegeysto waxay ku leeyihiin videoga u horeeya waa inaad bilowdid adigoon diyaar ahayn maxaa loola jeedaa videoga u horeeya mar walba ma fiicnaanayo marka bilow adigoon diyaar ahayn dabadeedna waa baranaysaa ku soo jira macnaha inaad ka baqdo maahan waa inaad wixii aad markaas haysato gelisaa kadibna tartiib aad ula qabsanaysaa qaabka fiidiyoyada iyo codadka iyo laysu dhexgeliya ee loo soo sameeyo waa kaas adigoon diyaar ahayn videoga u horeeya bilow wuu khaldamayaa wuu fool xumaanayaa laakiin cashar baa ka baranaysaa kan ku xiga wuu fiicnaanayaa kan ku xiga wuu fiicnaanayaa laakiin videogaas wuxuu u baahan yahay midba video ka dambeeya wuxuu u baahan yahay waxyaalo lagu qurxiyo oo u baahan aasaas u ah in videogaas uu dad badan gaaro waxaa ka mid ah thumbnailka sawirka qofka uu arkayo intuusan videoga gujinin sawir baa usoo baxaya sawirkaas hadduu soo jiidasho leeyahay titlena uu leeyahay waxa weeye qofkii wuu kali garaynayaa mithaal ahaan dhowaan waxaan baahiyey muuqaal ayaan baahiyey gabar Nairobi joogta aan ka duubay oo 9 nin guursatay marka 9 nin 5na si toosay u guursatay 4na khudbasaraad bay ku guursatay titlekii waxaan ogaga dhigay waxaan guursaday 5 nin oo toosa iyo 4 dadban qof kasta wuxuu ku khasbanaaday 4 dadban waxay tahay inuu ogaado uu kali gareeyo marka titlekii iyo muuqaalkii aniga iyadoo isla sawiran ah ayaan soo dhigay marka qofkii markuu arko 4 dadban ma khudbasaraad baa ma si kale u jiraan inuu gujiyo macnaha waxaan rabaa titleka inuu gaaban yahana macnana uu leeyahay oo sir ay ku hoos jirto si qof walba u ogaado waa ka marka titleku dadka intiisa badan oo daraasad la sameeyo waxa arkaysaa dadka intiisa badan YouTube-ka waxay ka daawadaan mobile phone sidaas awgeed titleka wuxuu ka badan 60 xaraf 60 xaraf hadduu ka bato shaashada mobile-ka ma soo qabanayo oo ka dheeraanaya waa ka dheeraanaya sax kaas xaraf adiga waxaa laga rabaa inaad la timaadid hal abuur videoga aad ka hadlaysid wax ku saabsanna ay ku jiraan dad badan waxay sameeyaan video iyo wax aan maxaa lahaa iyo title islaam bay isku qabtaan marka waxa qofkaas ku dhacaysa marka la kala gareeyo wixii uu soo aaday wax ka duwan buu helayaa dabeedna qofka dibdama kuguma soo noqonayo macnaha ina waa in qayaanada dadka aanan loo horseedin de wixii ay wax run ay kaaga barteen aan la timaado waa kaas maxaa yeelay hadday been ay kugu arkaan way kaa tegayaan dib dambana kuguma soo xiriirayaan aan mushkilada waa taas ku socojay waa tahay cabdixafiidow waxaa jira dad 1,000 subscribe ka badan haysta oo ka baqaya inay live-ka soo galaan barnaamijyadii kalena aanan waqti ku haynin oo doonaynin inay waqti geliyaan sidiisaba horta bahalkan YouTube-ka in live lasoo galo la sheekeeyo iyo in barnaamijyo lasoo diyaariyo keebaa macno badan mar walbaba horta qofkii 1,000 subscribe gaaray anigu waa u hambalyeynaya qofkii ka badan haystana sidoo kale qofkii 100 haystana waa u hambalyeynaya maxaa yeelay 100 qof hadday ku daawanayso waxaad dhaantaa qof 2 qof ay daawanayso sidaas awgeed waa ku dhiirigelinaya sheekadu iyo barnaamijyadu waa 2 qaybood oo kala duwan barnaamijyada ugu xiisaha badan waa kuwa aan waraysiga ahayn ee ah dad mawduuc ka niqaashaya wax iska weydiinaya oo markaa barnaamijku u dhacayo si dabiici ah oo sheeko ah laakiin qofkii macluumaadka ka gurinaysa qofkaaga wax wareysanayay safar baan soo galay tahriib buu ahaa halkaasaan soo maray halkaasay ka dhacday maxaa jidka ku soo aragtay maxaa la kulantay hormay waqtigu ahayd iyo si macluumaad ka guranaya marka qofkii waana wareysanaysaa waana sheekeysanaysaan laakiin markay noqoto kuwii siyaasadda
follow kaas ilkaan iska leeyahay toos baan isku hadlaya laakiin barnaamijyadan kale ayaa ka xiisa badan dadkana uga macno badan waa tahay waxaa arkaysa dad badan oo dacwo ka qaba in youtube-kii laga xirtay qabcinkaha youtube-ka laysaga xirtaa ama laysu dacweeya agart dadka youtube-ka laga xirta intooda badan waxaa ku dhacda waxyaalo kala duwan baa looga xirtaa qaar waxa weeye waxay soo qaataan videoyaal ayagu aysan lahayn bay soo qaataan oo aysan mararka qaarkood garanaynin videogan inuu leeyahay waxa la yidhahda content ID gaar ahaan waxyaalaha musica ku saabsan oo kale content ID locked hadduu yahay aad soo qaadatid markiiba qofkii videogaas lahaa ayaa waxaa u dhacaya qoraal oranaya videoga waa la qaatay qofkaas option oo haystaa inuu iska kaa daayo iyo haddii aad lacag ka samaynaysid inuu lacagtaas isagoo inta badan qaato iyo inuu strike kugu qabto iyo inuu kuu digo so hadduu strike kugu qabto haddana qof kale strike kale kugu qabto 2 strike baa qabtaa kan saddexaadna waaba laga xirayaaba waxaa kaloo jira dad yidhaahda qof baan youtube-kiisa ka qaadanaya oo ka xogaya waxaas wax jira maahan waxay la mid tahay anigoo ku yidhi bankaaga akaunkaaga la baxayaa qaadanaya lacag ku jirta baxaysaa magacayga ma taqaanin taariikhda dhalashadeeda ku xiran ma taqaanin adresskayga ma taqaanin passwordkayga ma taqaanin emailkayga ma geli kartid sidee u geli kartaa ma geli kartid marka inuu youtube-kaada dhaco waa inuu haystaa passwordka iyo macluumaadkaaga macluumaadkaada dhan hadda misaal ahaan waxaan ku siinayaa kale waxaa jira waxa la yidhahda 2-step notification oo kale haddii adiga oo Jamila oo gurigan ku wada nool nahay aad taqaanid passwordkayga ama aad meel ka aragtay oo aad jamacadina gashid markaad gashid taleefankaaga waxaa kugu soo dhacaya fartiin ku oranaysa qof baa la gareeyey ma adiga marka waa inaad yes tiraahda haddaad yes tirahdid qofkaas wax walba u furmayaan no haddaad tirahdidna waxba uma furmayaan marka qof awood ku leh oo wax ka qaadan kara si xoog ah adduunka ma jirto gaar ahaan aaladan technologyda aad baa looga taxadiray waxa aad baa looga taxadiray waa tahay taa inta hadan kaga gudubno dadka bilowga ah hadda doonaya inay youtube-ka kusoo biiraan qabcinkay ku heli karaan daawadayaal iyo subscribe intaba su-aal aad u fiican weeye anigu waxaan dhihi lahaa qof kasta oo Soomaaliya oo hal abuur ku jiro oo awoodo inuu videoyaal duubo maanta bilow ha sugin Soomaalidu 99% iyo ka badan waa dadka videoyaasha daawada weeye marka intaad videoga daawan lahayd 1% kaas videoyaasha soo saaraya haddaad sii kala qaybisid waxaa ku jira intooda badan oo badan yihiin dad wanaagsan oo wax wanaagsan dadka usoo daaya iyo waxaa kaloo jira kooxdii xayraansanayd oo reer hebel iyo qoysaska iyo qabyaalada iyo aflagaadada iyo fashilaada iyo fadeexada ka shaqaynaya kuwaas maalin walba waa la soo nacaya waa laga xiisa dhacaya sababtuna waxay tahay dadku garaad bay leeyihiin anugu ma daawan karo adiguna ma daawanayso qof damiir lama daawanayo qof Soomaalida meel soo fadhiistay oo reer hebel caynaya waxaad ku daawan kartaa oo kaliya in adiga caadifad iyo qabyaalad kugu jirto aad u difaacaysid ama ku taageeraysid iyo kan waxaan soo daynaya adiguna marka hore ka liidatid wixii u dhaxeeya qofkii haya ii sheego waa ka baranaya so marka qofka Soomaaliga waxaan ku dhiirigelin lahaa in uu waxaan ogahay in uu helayo dad daawada oo waliba aad u fara badan uu helayo gabar ahow wiil ahow waxa doontid ahow hooyo weyn ahow inaan dhalinyaro ahow dhib ma lahan haddii aad la timaadid hal abuur si joogtaan videoyaasha soo daysid tayada muuqaalada iyo waxa aad soo gudbinaysina kor u qaadid oo qofka daawanaya uu yiraahdo alla ilaahay 10 daqiiqo halkan waxbaan ka faa'iiday qofkaas qalbigiisa waad ku guuleysatay adigoon ku oran subscribe buu ku saaraya una ka warqabaya saaxiibadiisna wuu u gudbinayaa adigii wuxuu ku samaynayaa xayeysiin marka aad bay u sahlan tahay in la sameeyo laakiin in uu qofku joogteeyo uu ka dhabeeyo waxa uu rabo inuu sameeyo aad bay u adag tahay dad yar baana samayn kara si joogta ah waa tahay in youtube laga miro dhaliyo oo aad ku hesho malaayiin subscriber ama daawadayaal ah iyo in aad barnaamijyo taxanaha lagaaga barto aad soo saarto oo ama weekly ha noqdaano ama daily ha noqdaano ma fududahay midaas barnaamijyo taxana in la soo saaro oo weekly marka soo saaro anigu waxaan aaminsanahay qofka Soomaaliga ah dadka ugu mashquulka badan waa dadkeena hadda dabada jooga oo ilaahay waqtiga barakadiisa ka qaaday
soomaaliya weli waxaan ogahay duurkii xataa in la seexday ilaa iyo haatan 10 daqiiqo ood mawduucaad si fiican u dhuuxday mithaalan ku siinaa waxaan aqaanaa nin soomaaliya amarka ma haysa magaciisa ma rabo inaan sheego muuqaalo yaryar buu soo dhigaa muuqaaladaas wuxuu kaga hadlaa bay'adda dhaqaalaha maxaa la dhahaa dhulka xoolaha kaga hadlaa 10 daqiiqo uu soo dhiga 2 saac markay ku jirto ma malin karaysid waxaa kaloo jiro aan arkay nin dhalinyaro ah oo asna Hargeysa jooga oo dadka masaakiinta caawiya lacag bay iska aruuriyaan baawur bay qaataan dad bay u tagaan waxbay siiyaan dad masaakiin ah muuqaal yar qurux badan ka duubaan sida loo daawanayo kaala arag waa maxay waa wax muhiim ah oo dadkii ay jeclaanayaan oo xiise gelinaya inay arkaan walaal caawinaya isla mar ahaantaasna kii kalena xusay dadkii bay'adii marka in 10 daqiiqo video oo tayadiisu ay fiican tahay oo laga soo shaqeeyay oo sawirka muuqaalka horeeya thumbnailka la yiraahdo qurux badan yahay title-ku compelling uu yahay qofka ku dhiirigelinaya oo maskaxdiisa xanaanteynaya inuu kala gareeyo gudaha markay u tagaana 30 sakano ugu horeysa qofkaas title-ka soo arkay iyo muuqaalka sawirka kor ka soo arkay markuu qolkaagii iyo gurigaagii soo galo soo fariisto waxa uu banaanka ku soo arkay oo ku soo raacay aad maaragtay u baandhaysid oo aad tistid waxa qofkaas uu kula joogayaa waxaana qabaa in muuqaalo noocaas in la duubi karo dadkeena waa dad wada hal abuur miiran ah dadaal badan ilaahay karti siiyey adkaysi badan waaye arag ah please bilaaba sameeya laakiin ha caytamanina qabyaalada ka shaqeynina ummadda ha isku daranina dhibaataha ka shaqeynina fadeexad iyo fashilaadna ka fogaada dadku way ka daaleen waxaas iyo xoogaa yaro siyaasadda waalan soo dhowjay waa tala aad u fiican ugu dambeyntii aan soo gabgabayno dad badan waxay aad maaragtay hami ugu yeeshay in aaladan laga helo xoogaa yaro shilimaada hadba qofba ha u badnaado qof ha u yaraadaan qof dhexdhexaad ha u noqdaan qofka goormee wax loo bilaabaa sidees wax loogu bilaabaa su-aal wanaagsan waaye waxaan rabaa halkaas inaan wax yar dul istaagno dad fara badan waxay maqlaan social media gaar ahaan YouTube-ka ama Facebook-ka YouTube-ka baad ka hadlaynaaba baa dhaqaale laga sameeyaa dabadeedna qofka waxa ku soo dhacaya kaamarad waa haystaa waana hadli karaa lacag baan samaynayaa 2 video 3 video 5 video markuu sameeyo ciddaa wadada waayo wuu ka niyad jabaya faroo ka qaadaya sababtu waxa ay tahay taas keenaysa marka hore macluumaadka lagu siiyo waa khalad waxaa jirta darajooyin la maro adoon darajooyinkii marinin haddaa rabtina meesha u sarreyso ka bilowda maalinta qani aan noqotid adigana niyadjab baa kugu dhacaya dadkuna muuqaalada daawan mayaan markuu niyadjab kugu dhacana way adag tahay inaad mar kale courage heshid ama dhiirigelin aad wixii mar kale ku bilowdid oo bateriga lagu jaaj garayo marka hore waxaa fiican inaadan ka fakerinin dhaqaale ka samayn ee aad dadka qadarisid ku daawanaya tirahdin fine dadkan waxaan usoo bandhigayaa muuqaaladan waxaan aaminsanahay waxaan inay faa'iido ku jirto ama maxaa lahaa dadka darsi ay ka baranayaan waqtigooda ay siiyeen aan uga mahad celiyo marka halkaas waxaa ka helaysaa organic subscribers dad si dabiiciya kuu soo raacay qofkana waxa dhisa waa waxaas hadda anagoo kale way noo sahlanayd maxaa yeelay waa la yaqaanay laakiin qofku maanta markuu soo galo uusan horey loo arkinin in lagu barto waa adag tahay muuqaaladaada in dadku ay ku taxanaan waa adag tahay YouTube-kana markiiba wuxuu kuu dhigayaa markaad muuqaal soo geliso meesha u hooseysa ku geenaya maxaa yeelay malaayiin kale ayaa kaa xoog badan oo algoritmka uu yaqaano waa mishinka YouTube-ka wade oo soo jiidanaya si kale haddaan ku iraahdo inaad dadka wax samaynaya horey wax usoo sameeya 2 sano 3 sano 5 sano ku jiray haddaad isku cabirtid oo aad ka qiyaas qaadato tiraahdo hebel buu sameeyaa noo sameynaya waa lagu aysaa adigu cidna hala tartamin waxay samaynayaan arag fikir ka qaado fikirkaas quruxso adigu mid kuu gaara ka dhigo dadku waxay kugu soo raacayaan waa kaas ma aha qof kale fikirkiis haddaad qof kale fikirkii maanta la timaadid berita la timaadid dadkii waxaad sawir faygaad siisay marka maskaraadkaas ku xiran markay soo dhacdo adigii baa soo haraya laguma yaqaan dadkiina kulama qabsanayaan marka sida ugu fiican waxay tahay inaad daacad ka ahaatid qofka aad tahay ku kalsoonaatid haddii aad cawaran tahay iyo haddaad madax weyn tahay iyo haddaad madax yar tahay ilaah baa kuu sameeyey ku qanac adoo isku kalsoonimo dhaqaale ma laga sameeyaa dhaqaale fara badan baa laga sameeyaa haddaad eegtid dadka ugu dhaqaalaha badan oo YouTube-ka dhaqaale ka sameeyey nin waxaa jira hadda la yidhahdo Sean Connolly la yidhaahdo
wuxuu ka sameeyaa lacag $1 milyan sanadkii ku dhow. Soomaali fara badan baa dhaqaale ka samaysa. waana sababta u leeyahay dhalinyarada iyo dadka dhexdhexaadka iyo dadka waaweyn ee hal abuur kale fikir kale waxaa doonta hal abuurkaaga ahaado. gabar waxaa maalin arkay YouTube video soo gelisay waxay ka hadashaa dhaqanka reemiyiga arooskooda, xoolaha sida loo dhaqo, guryihii maxaa lahaa ka samaysnaa falkada aqal Soomaaliga sida loo sameeyo bay ka hadashaa. Beautiful. marka dhaqaale fiican baa laga sameeyaa, ka samayn kartaa. marka dadku dhaqaalaha waxay u arkaan oo keliya xayeysiinta lagu xiro YouTube. waxaa jira xayeysiintaas wax ka badan kana weyn kana dhaqaalo badan baa jirta oo ah waxa la yidhahda affiliate marketing. markaad soo gaartid meel fiican oo dad badan ay ku daawanayaan, kambaniyada waaweyn hadday ahaayeen kuwa gawaarida sameeya, hadday ahaan lahayn kuwa kombiyuutarada sameeya, hadday ahaan lahayn xarumaha waaweyn ee laga shopping garaysta, for example Amazon oo kale, kuwaas waxay ku siinayaan affiliate marketing program bay leeyihiin. 1 daqiiqay ku qaadanaysaa qofku inuu buuxiyo, dabadeedna adigu waxa aad rabto ay gadayaan ayaad page-kaaga soo dhigaysaa, qofka kale garanaya wuu gadanayaa, adigana waxa lagu siinayaa commission, company-gaasna waxbuu gadanayaa. marka waa win-win situations, caawin weeyaan. laakiin marka hore adigu waa inaad meel habboon aad timaado. soo dhow joog ilaa meeqa subscribe lagu heli karaa? subscribers ka kaliya kuma xirno. waxaa jira qof haysta 10,000 oo subscribe ama 50,000 ama 20,000 oo subscribe haysta ama 10,000 iyo wax ka yar haysta, laakiin muuqaaladiisa iyo siduu wax u soo diyaariyey ayaa habboon. sidaa awgeed waxay ku ogolaanayaan in ay maaragtay ku ogolaadaan. waxaa jira mid kaloo la yiraahdo Clickbank misaal ahaan, productiga ku jira oo ayagu waxay iibinayaan waxa ku jira kuwa anaga aan noo qalmin oo diinteenu diidan tahay, alcohol kala ka mid ah iyo waxyaalaha la midka ah. laakiin waxaa jira meel aad ka dooranaysid waxa adigu rabtid, waxaas oo dadku ay danaynayaan. ilan haddaad keentid Chinese waxay cunaan shimbir shiilan bay cunaan, haddaad Soomaali ku tiraahdo shimbir shiilan oo xaaraan iibsada kaa iibsan mayaan. marka waxay Soomaalidu danaynayaan inaad keentid. marka subscribe-kaaga inuu fiican yahay xoogaa 10,000 iyo wixii ka badan yahay way wanaagsan tahay. laakiin dad waxaa jira very sophisticated ah oo ayagoo dad yar haysta dhaqaale fiican ka sameeya. waana sida ugu fiican weeye inaad balaaratid oo aadan ku koobnaanin xayeysiinta YouTube. haddii tomorrow xayeysiinta YouTube lagaa xiro maxaad samaynaysaa? affiliate marketing programka kuu soconaya. marka premium asiga goormee la helaa? sees loo helaa? iyo live chatka iyo premiumka iyo waxyaabaha yaryar iyana kuwa la mid ah goormuu YouTube qofka u supply garaya oo yani u siin kara ama loo furaa? waxay ku xiran tahay qofba waasi. hadda live chatka oo kale maxaa la yidhahdaa premierkan oo kale, waxaa kaloo jira dadka ku daawanaya. waxaa jira hadda ani aan ku daawanayo barnaamijkaagan ka helaysaa, usoo diyaarisay, waxbaan ka faa'iiday, oo ku faraxsanaa shaqada qabatay, waxaan rabaa inaan ku dhiirigeliyo. meel yaroo la taabtaa jirta, $10 ku siiyaa, $100 ku siiyaa, $200 ku siiyaa, hadhow aday kuu soo dhacaysaa. marka dadkeenu inta badan kuma baraarugsana, laakiin waa arkay dhowr qof oo waxaa samaynaysa Soomaaliya. marka waxaasoo dhan waxay ku xiran yihiin markii ay videoyaashaadu xoogsadaan ayay ku bilaabayaan. waxaa jira subscription-ka oo kale, dadka ku daawado wax gaara usoo daysid. misaal ahaan baa waxay danaynayaan idinku hadda dumar baa tihiin, waxaa laga yaabaa inaad ka hadlaysaan waxyaalaha dumarku isku qurxiyaan ama dhar cusub oo kale. 20-50 dumar oo kale meesha isugu keenaysaan, furay haystaan, iskama soo geli karaan, subscription bay bixiyeen, halkaasaa wixiina ku dhammaysanaysaan, qaarayna bixinayaan. marka kaasoo kalea jira oo programmo gaara ah oo dad gaara loogu talagalay. marka siyaabo badan buu qofka videoyaasha abuura oo contentiga soo daaya waxaa u furan albaabo badan. in badanoo ka mid a nasiib darro Soomaalidu ma fahansana, in yaroo fahansan waa arkay oo very sophisticated ah waan u hambalyanaya. because waxaan jecelnahay qofka Soomaaliga inuu horumar gaaro, gaar ahaan dhalinyarada oo mustaqbalka dadkeena ah. marka waxaad leedahay meesha qofkii hal abuur leh oo wax uun samayn karaa waxaa taala dhaqaalo kaalayo ka faa'iidaysta.
waxaan idinku dhiirigelinayaa inaad youtube-ka inaan daawanin keliya bal aad meeshaad ka daawan lahaydeen idinku eg ilaahay qof kasta wuxuu siiyey wax gifti ah oo u gaar ah laba qof oo mataano ah isku aragtiin waxyaalo badan ka maahan isku waxna ma samayn karaan haddana way isku egiin lama kala garanayo sababtu waxay tahay qof walba ilaahay wuxuu uu siiyo gaaraa jira fadlan gudahaaga eeg ha eegin qof 200,000 haysta iyo qof haysta 800,000 ha eegin oo 5 sano 6 sano naftu ka soo dhacaysay oo maalin markuu video keena lacaynayay ha fiirin waxaas adigu muraayadda isku ee gudahaaga soo hel waxaas ilaahay uu kugu abuuray ummadda u sheeg laakiin abshir faarax nuur bacadle wuxuu yidhi warhoy dalabka quruxsada arsaaq waa laydiin qoray marka ha ku raadinin inaad dadka caydid ummadda fashishid ceybtooda iyo caradooda aad ku mashquushid iska ilo waxaas dadku waa naceen waana kasoo taagan yihiin dadka wax anfaca u soo daa ayaga ayaa soomaalidu wanaagga kaa jecel kumanaan kun ayagoo ku imaanayay 100,000 kun maasanta jay adba u maasan tahay cabdixafiid maxamuud barnaamijka sidaad igala qayb gashay runtii waxaan filayaa inay ka faa'iidi doonaan asxaabtu waayo aad baa runaantii loo xiiseeyaa dad badanna waxaabay iga codsadeen cabdixafiidow maadaama aaladan aad muddo dhex gashay ood waqti badanna ku bixiso waxna ka baratay in aad mar uun uga sheekayso youtube iyo sida u shaqeeyo aad baa u maasan tahay cabdixafiid insha allah mar kale ayaad nooga sheekayn doontaa dhanka kale facebook pageka iyo sida u shaqeeyo balse insha allah barnaamijyada dambe ayaanu ka dhiganaynaa aad baa u maasan tahay cabdixafiid aad u maasan tahay